Dowladda waddanka Mareykanka ayaa la sheegayaa in laga yaabo in ay bartilmaameedsato laba gabdhood oo uu dhalay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. Mareykanka iyo Midowga Yurub ayaa lagu wadaa inay cunaqabateyn dheeraad ah ay kusoo rogaan Ruushka Arbacada maanta, taas oo jawaab u ah eedeymaha Ukraine ee ah in ciidamada Ruushka ay dambiyo dagaal ay ka geysteen magaalada la yiraahdo Bucha ee dalkaasi Ukraine. Xogayaha warfaafinta aqalka cad ee dalka Mareykanka Jen Psaki ayaa sheegay in Mareykanka uu cunaqabateyn kusoo rogi doono maalgashiga cusub ee Ruushka, isla markaana uu cunaqabateyn dheeraad ah uu saarayo hay-adaha maaliyadda ee Ruushka iyo sidoo kale saraakiisha Kremlinka iyo qoysaskooda. Wargeyska Wall Street Journal yiraahdo ee kasoo baxa dalka Mareykanka ayaa sheegay in xukuumadda Washington ay ka fiirsanayso cunaqabateyn dheeraad ah oo lagu soo rogo laba gabdhood oo uu dhalay madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin. Danjirayaasha Midowga Yurub ayaa Arbacadii tixgelin doona qorshaha cunaqabateynta oo ay ku jiraan macluumaad caalami ah oo ah soo dejinta dhuxusha Ruushka iyo ka hortagidda inta badan maraakiibta Ruushka laga leeyahay ama laga maamulo inay isticmaalaan dekedaha Midowga Yurub. Waxaa cunaqabateyntan sidoo kale Midowga Yurub ay doonaysaa inay ku qaado inay beegsato maraakiibta ay maamulaan ganacsatada u dhashay waddanka Ruushka, isla markaana la mamnuuco soo dejinta dhuxusha dalka Ruushka. Tallaabadaas ayaa uu Mareykanka u arkaa inay tahay mid cusub oo lagu beegsan doono dadka sarsare ee ka tirsan dowladda waddankaasi oo ay ku jiraan gabdhaha uu dhalay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. Dhinaca kale, xogayaha guud ee ururka NATO Jen ayaa waxa uu sheegay in isbahaysiga NATO uu ka rajaynayo Ruushka inay iska dayso in ay qabsato gobolada dhaca bariga Ukraine ee Donbass uu ka mid yahay labada toddobaad ee soo socda. Mareykanka ayaa isna ogolaaday $100 milyan oo dheeraad ah oo kaalmo militari ah in la siiyo Ukraine. Dhinaca kale, madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku eedeeyay ciidamada Ruushka in ay sameeyeen dambiyadii ugu xumaatan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. Zelensky ayaa sheegay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay in dad rayid ah la dilay, ayna taangiyada Ruushka ay dad dulmareen, weliba iyadoo ciidanka ay la socdaan taangiyada ay ku raaxaysanayeen ama ay ku rarnaayeen hubka aadka u culus. Waxaa la sheegayaa in magaalada la yiraahdo Donbass ay tahay meesha NATO ay doonayso inaan la qabsanin. Xogayaha NATO sidoo kale waxa uu sheegay in uu rajo wanaagsan uu ka qabo in Ruushka ay iska daysaba gebi ahaanba inay qabsadaan gobolada dhinaca bari ee Ukraine ee Donbass labada toddobaad ee soo socda. Inkasta oo Ruushka uu aad u sii kordhiyay duqeymaha uu ku hayo magaalooyinka dhaca kuwa u dhow caasimadda waddankaasi ee Ukraine, xaalad cakirnaan ah oo aad u xooggan ayaa ka jirta. Inkasta oo weli Mareykanka uu isha ku hayo dhaqdhaqaaqa dowladda Shiinaha ee ku aadan xiisadda waddanka Ukraine. Shiinaha waa in uu ilaaliyaa mas'uuliyad gaarna oo iska saaraa in uu ilaaliyo nabadda caalamka oo aan wax u dhimin baa lagu yiri cunaqabateynta ka dhanka ah Ruushka. Madaxa guddiga Yurub ayaa waxa uu sheegay in Ruushka ay si gaar ah isha ay ugu hayaan, iyagoona ka doonaya in aanay wax taageero ah siinin ama uusan jebin cunaqabateynta reer galbeedka iyo Yurub ay kusoo rogeen dowladda waddankaasi Ruushka. Isaga oo ka hadlayay baarlamaanka Yurub ee Brussels, van der Leyen waxa uu sheegay in Midowga Yurub uu filayo in caalamka intiisa kale ay mowqif cad ay ka qaateen dagaalka uu doortay madaxweynaha Ruushka ee Putin. Wuxuu intaasi ku daray in Midowga Yurub uu fariin u dirayo Shiinaha oo uu u baaqayo in la ixtiraamo cunaqabateynta uu Ruushka u saaray Midowga Yurub ama ugu yaraan aan la hareer marin oo aan la weeqin. Ruushka ayaa waxaa la sheegayaa in xiriir wanaagsan uu kala dhexeeyo dalka Shiinaha, taasna waxay keentay walwal aad u weyn oo Mareykanka iyo reer galbeedka ay muujiyaan oo ah in Ruushka uu wax alaale wixii uu damco in uu helo uu u maro dhinaca Shiinaha. Labadan waddan ee Shiinaha iyo Ruushka xiriir wanaagsan ayaa ka dhexeeya, taas oo ay ka masiirsan yihiin reer galbeedka iyo Mareykanka.
dhinaca kale maamulka wadanka Greek ayaa waxay ku dhawaaqeen in 12 xubnood oo ka tirsan ergada diblomaasiyiinta iyo qunsuliyadda ee Ruushka in loo aqoonsaday in laga saaro guud ahaan wadankaasi. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Greek ayaa maanta waxa uu sheegay in dalkiisa laga saaray diblomaasiyiin 12 gaaraya oo u dhashay dalka Ruushka. safiirka Ruushka ee Greek ayaa goor sii horeysay oo maanta ah lagu wargeliyay go'aankan sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda. wadamada Boortaqiiska, Talyaaniga, Sweden, Spain, Estonia, Denmark iyo Latvia ayaa dhammaantood waxay talaadadii ay wadamadooda ay ka eriyeen diblomaasiyiinta u dhashay wadanka Ruushka ee ka shaqeynayay safaaradaha dalalkaasi. waxaa jira kacdoon xoogan oo dalalka reer galbeedka ay hadda ay wadaan kaasoo ah in Ruushka la go'doomiyo lagana soo ceeriyo dhammaan dalalka uu jooga ee midowga Yurub. Greek ayaa maanta u dambeysay oo 12 diblomaasi ka ceerisay wadankeeda ilaa hadda Ruushka kama uusan hadlin. dhinaca kale militariga wadanka Ruushka ayaa ku dhawaaqay duqeyn xiriir ah oo ka dhacday agagaarka meel muhiim ah oo ku taala dalka Ukraine in lagu beegsaday xarumaha kaydka shidaalka iyo saadka ee ciidamada wadankaasi. subaxnimadii Arbacada ee 6 bisha Abriil oo maanta ku beegan gantaalada hawada sare iyo kuwa dhulka ayaa waxaa lagu burburiyay 5 saldhig oo lagu keydiyo shidaalka iyo saliidaha ee aagaga degmooyinka iyo goobaha ay ku xoogan yihiin ciidamada wadankaasi. Ukraine waxaa la sheegay in xarumahaasi la burburiyay ee dhabarjab xoog badan ay u tahay ciidamada dowladda wadanka Ukraine ee dagaalka kula jira Ruushka. waxaa sidoo kale mas'uuliyiinta dowladda wadanka Russia ay sheegeen in sidoo kale la beegsaday aagaga Kharkiv iyo magaalooyin kale oo gobolka Donbas ee bariga Ukraine ka tirsan. waxaa sidoo kale la sheegayaa in ay sii wadi doonaan duqeymaha ay ku beegsanayaan xarumaha kaydka shidaalka iyo meelaha kale ee muhiimka ah ee wadankaasi. dhinaca kale horumaradii ugu dambeeyay ee ciidamada Ruushka ay ka sameeyeen magaalada Kharkiv la yiraahdo ayaa laga yaabaa inay gogol xaar u noqoto in bariga dalka Ukraine magaalada ku taala ee la yiraahdo Islafiniski ay noqoto bartilmaameedka xiga ee duulaanka Ruushka uu qaadayo, sida lagu sheegay warbixin ay Isniintii soo saareen khubaro military oo ka tirsan macadka daraasaadka dagaalka oo fadhigiisu uu yahay magaalada Washington. waxa uu sheegay in laga yaabo in ciidamada Ruushka ay u jihaystaan in ay duulaan xoog badan ay ku qaadaan magaalada bariga ku taala ee Islafiniski la yiraahdo. dadaalada ay wadaan ciidamada Ruushka ee ka soo baxay deegaanka la yiraahdo Izam si ay u qabsadaan Islafiniski waxay u badan tahay inay cadeyn u tahay in dagaalka uu hadda u xiibsiibtay xagga bariga wadankaasi. dhinaca kale maamulka madaxweynaha dalka Mareykanka ee Biden ayaa ogolaaday in la iibiyo xirmo hub oo ay ka iibiyaan dalka Taiwan kaas oo loogu talagalay in lagu wanaajiyo awoodda difaaca hawada ee jasiiradaasi. heshiiska labada dhinac ee noocan ah ayaa aqalka cad waxa uu riixayay dantan iyo sanadihii lasoo dhaafay iyada oo dagaalka Ruushka ee Ukraine uu diiradda saarayo dareenka cusub ee weeqaya taageerada dimuqraadiyadda ay kala kulmaan ama taageerada dimuqraadiyadda ee la kulmaya in hanjabaad ciidan laga hor iman doono. maamulka madaxweynaha dalka Mareykanka ee Biden ayaa waxa uu ogolaaday in dalkaasi Taiwan laga iibiyo xirmo hub ah oo ah nooca difaaca hawada. arrintan ayaa waxa ay ka dambeysay markii Ruushka uu gudaha u galay dalka Ukraine taas oo loo arkay in ay hanjabaad cusub ay ku tahay nidaamka dimuqraadiyadda adduunka. jasiiradan la yiraahdo Taiwan ayaa waxaa sheegata dalka Shiinaha waana jamhuuriyad iskeed ugu dhawaaqday madax banaani laakiin ka mid ah dhulweynaha Shiinaha ayaa tani waxa ay u tahay walwal cusub oo xoogan waxaana laga yaabaa in ay tallaabo ay qaado. waxa ay khubarada caalamka ee diblomaasiyaddu ay saadaalinayeen in Ruushka markii uu galay dalka Ukraine in tallaabada xigta ay tahay in Shiinaha iyana ay gudaha u gasho jasiiradda Taiwan la yiraahdo halkaas oo ay u aqoonsan tahay in uu yahay dhul wadankeeda ka mid ah. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa ku wargelisay Koongareeska Talaadadii inay ogolaatay iibinta qalabka hawada ee gantaalada hawada ee la siinayo Taiwan
tababar iyo taageero kale oo dheeraad ah oo dhan 95 milyan si loogu taageero nidaamka difaaca cirka ee jasiiradaasi Taiwan. Xirmadaasi waxa ay gacan ka geysan doontaa baa la yiri in ay hagaajiso ammaanka dalka Taiwan, waxa ayna gacan ka geysan doontaa baa la yiri ilaalinta dheelitirka militariga ee gobolka. Wasaaradda difaaca Mareykanka ee Pentagon ayaa ku sheegtay hadal ay soo saartay iyadoo sharaxaysa in ay tallaabadaasi ay tahay mid aad ugu wanaagsan dimuqraadiyadda adduunka. Xukuumadda Beijing ee Shiinaha ayaa joojisay dhaqdhaqaaqyada militari ee aagaga Taiwan sanadihii lasoo dhaafay, taas oo qayb ka ah jawaab sii kululaanaysa ee xiriirka Washington iyo xukuumadda Ruushka. Xukuumadda dalka Shiinaha, xisbiga shuuciga ah ee Shiinaha oo aan weligiis xukumin Taiwan balse ku andacooda in uu ka tirsan yahay dhulkeeda Shiinaha, ayaa wacad ku maray in uu la wareegi doono gacan ku haynta jasiiradaasi sida dimuqraadiga ah isu maamusha haddii loo baahdo. Waxaana walaaca hadda dagaalka Ukraine uu imaanayaa iyadoo laga cabsi qabo in Shiinaha iyana ay gudaha u gasho Taiwan. Ugu dambeyntii, isbedelada istiraatiijiyadda ee dhowaan Ruushka uu sameeyay ayaa laga yaabaa in loo macneeyo in madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin uu ka tanaasulay isku daygii uu ku doonayay inuu ku qabsado magaalada caasimadda u ah dalka Ukraine ee Kiev, sida uu sheegay sarkaal sare oo Mareykan ah iyo kuwo kale oo reer galbeed ah. Putin ayaa lagu wadaa in uu weerar cusub oo naxariis darro ah uu ku qaado gobolka Donbas ee bariga Ukraine, sida uu sheegay xogayaha guud ee NATO Jens talaadadii maanta. waa la soo celin doonaa buu yiri sababtoo ah waxay adeegsadeen rasaas badan. waxaana laga yaabaa hadda in dagaalka uu wareego gobolkaasi Donbas oo ay ka tanaasulaan inay gudaha u galaan magaalada caasimadda wadanka Kiev ee dalkaasi. Ugu dambeyntiina, dowladda wadanka Turkiga ayaa waxa ay shaacisay inay dib u furanayso safaaradii ay ku lahayd magaalada caasimadda dalka Ukraine ee Kiev. Turkiga oo garwadeen ka ahaa wadahadaladii uu la lahaa wadahadaladii uu u furay dalalka Ukraine iyo Ruushka ayaa hadda waxa uu doonayaa inuu dib u furto safaaradiisii, waana wadankii ugu horeeyay oo tan iyo dagaaladii kadib shaaciya in uu furanayo safaaradii uu ku lahaa halkaasi. Turkiga waa wadankii ugu horeeyay oo diblomaasiyiin u dira magaalada Kiev ee dalka Ukraine kadib markii duulaanka halkaasi uu ka bilowday. Safaaradda ayaa dhowaan waxaa laga wareejiyay magaalada Kiev, waxaana loo wareejiyay magaalada galbeedka wadankaasi ku taala, laakiin hadda dib ayay ugu laaban doonaan, halkaas ayayna shaqadooda kasii wadi doonaan baa la yiri. Turkiga waa wadankii ugu horeeyay ee siiyey hubka Bayraktar la yiraahdo TB2 ciidamo iyo diyaaradaha daroonka wuxuu siiyey maamulka dowladda Ukraine, laakiin weli xiriir wanaagsan ayaa kala dhexeeya madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. guud ahaan halkaas aynoo joogo wararkii ugu waaweynaa ee xiisada dagaalada wadanka Ukraine. fadlan si aad u hesho warar noocan oo kale ah oo joogto ah, subscribe inoo saar kana mid noqo saaxiibadeen.